dowladda xasan cali khayre iyo filla Soomaaliya waxa ay qabteen oo ugu weyn dalkay kala siyaasada galiyeen maamuladii bay ku duuleen cid ka fikrad duwan bay duulaan ku qaadeen muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u lahay waxay u dhiibeen cadow u dhiibeen oo taariikhda maanta baal dahab u gashay baal fooxun mugdiga u gashay muwaadin Soomaaliyeed bay cadow gacanta ugu dhiibeen maamuladii dhisnaa iyagoo diyaarsan bay duulaan ku qaadeen oo ay burburiyeen caasimadii Soomaaliya intaasoo ciidan joogtay meeshay amnigoodii si tartiib u sugi lahaayeen oo dadkii kasban lahaayeen ganjeeliyal baa lagu xira marka ma oran karo Soomaaliya horumar gaarsiiyeen ma oran karo hal mid anigu waa ku amaanaya kaliya hal qodob waa u qirahaya inay dadka shaqaalaha iyo hay'adihii dawladda mushaarkoodu wax kasta ha ahaado inay inta ku dadaaleen taas waa ku amaanaya oo wiilkan maskiinka subaxi xaafiiska soo kala gurigiisa soo kala haya oo hooyadii iyo aabihii iyo caruur bil ka soo haya inay xoogagooda siiyeen horta taas aad iyo aad baa runtii ugu amaanaya taas ma inkirayo laakiin dalka horumarkiisa iyo isku xirnaantiisa laakiin in musuqmaasuq laga hortagay in wadahadalada Soomaaliland la furay yaan la dhameystirin hadii la doono oo la isu tagay oo markii ugu horeysay xitaa si foolka fool dhul Soomaaliyeed oo Djibouti la isugu tagay arrimo badan ay ku guuleysteen baarlamaanka sagaalaad ku jirtay xildhibaanadiisa xitaa waxa la sheegay inaysan mushaar qaadan jirin ilaa haddana baarlamaanka Soomaaliya iyo askartii Soomaaliyeed iyo shaqaalaha dawladda mushaarku ay si toos u qaataan dad badan musuqmaasuq loo xiray dawladdan ka hor waxa la sheegay inaan la arag qof musuqmaasuq maxkamad loo soo taagay oo agaasimayaal ay ku jiraan oo mas'uuliyiin kale oo hay'adaha dawladda ka shaqeeya ay ku jiraan intaas oo dhan maysan ku muuqan horta hal mid waaba sheegaba dhinaca mushaarka waa sheego inaad ku noqoto aan ku noqdo horta maaha musuqmaasuqa wiil xuna agaasimaha loo xirayo waa agaasimayaal guud laakiin ha loo xiro away wasiiradii ka waaweynaa waxa maanta Nairobi iyo adduunka iyo Mareykan iyo gobolada waqooyi galbeed iyo meel saraha laga dhisay maaragta ma lacag ay leeyihiin ba ka keensan way loo la xisaabtami waayay wali maaragtay wasiir la xisaabtamay oo dhibaato gees la xisaabtay maaragta laakiin xogaa horumar la gaaray Soomaaliya taa horumar lama gaarin musuqmaasuqa ka xun miyaa jira in 100,000 oo qof Facebook lagu maalgeliyay oo intaas oo kun loo diro oo la yiraahdo dadka naga fikrad duwan caaya musuq xagee laga keenay waxa lagu maalgeliyay xagee laga keenay xamar ma tagta ma tagta ya bixinay lacag waxa bixinaya filla Soomaaliya bixinaysa dad baa u xirsaaran hoteelada xamar dadka degan maarta u jiifa wada qaaqdayaasha oo markiinan hadlo ama nin siyaasi u hadlo TV-ga soo fariisanaya inta loo yeero waxa kharashka lagu bixinayo uma jeedaan miyaa waxa cadeyno cadeynteeda waanu haynaa waa la ogyahay maxaa kamid ah yaa bixiya lacagta la bixiya intee dhan lacagtaas waxa la baxshaa 3,000 qaar baa baqaata 4,000 qaar baqaata hoteelada waxaan ognahay inta anigu xamar joogay hoteelada lacagta laga baxsho oo la bixiyo dadka jiifaan ognahay guryaha loo kreeyay oo 10 iyo 20 loo jiifaan ognahay nin walba wuxuu leeyahay xamar dhan bay ku yaalaan hadda xagee kaga yaalaan waxaan rabnaa cabdi eedaynta inaan sababayno ku hareerada ku yaalaan waxay ku yaalaan number 4 bay ku yaalaan hoteelada waxa la jiifay Aljazeera loo wada jiifaa SWL baa jiifaa ma dawladda Soomaaliya bixisa ku qoran dawladda Soomaaliya bixisa waan ognahay iyada bixisa waa marxaati ma doonto taariikhdu maray tahay waa la soo saari doonaa hoteeladuna way ogyihiin wax qarsoon ma ahan bil kasta biilkeeda wasaaradda maaliyadda loo dhiibaa adeer anigu hadii wax badan baan ogahay cadadkeeda ma noo sheegi kartaa intee dhanta cadadkeeda xilli allaale iyo xilliga loo baahdo qaarba waxba la baxshaa xilli allaale iyo xilliga loo baahdo ayadoo dokumenti iyo qoran baan rabaa inaan saxaafadda u soo dhigo oo qabo qolo walba inta laga bixin jiray ama wadaad ma wad aragtay wadaadadii Xasan Sheekh qeylin jiray ma wad aragtay hay ku dambeeyay wixii muxuu ahaa Xasan Sheekh ku qulashay kuwa hadda waxay joogaan marka toor maxadanka mucaaradaysa adeer dawladda shaqaalan uma tihid adeer waxaana dawladda hore kari baan ka hela marka dadka maanta joogaan naftooda ay fiirsanayaan qarannimo ma fiirinayaan dawladnimo ma fiirinayaan horumar ma fiirinayaan marka adeer waxaas oo dhan dadkii dhan baa la aamusiyay waad ogtihiin oo saxaafadii oo dhan baa la wada aamusiyay oo intii hadashay la wada xirxiray oo cararay saxaafadda markay hadda ku wareysanayaan in badan baa waxay ku leeyihiin Cabdi Barre waxaan ugu farafarayn marka wax badan baan ognahay anigu aan siyaasi ahaado laakiin adeer wax badan baan waxaan ogahay siyaasadda Soomaaliya ama dhinaca intelligence-ga ama muqaabaraadka khibrad baan u leeyahay wax badan baan ogahay marka waxyaabo aydan ogeyn baa jira marka waxaas oo dhan waxaanu rabnaa inaanu xilligan dawladda kala guurka intay socoto inaanu diyaarino dawlad cusub markay timaado aanu soo bandhigno si loogu xisaabtamo waxaan wixii sameeyay faldambiyeedkan wixii sameeyay dadka mucaaradka qaarkood in la aamusiyay baad sheegtay warbaahinta qaybtood dad badanna in lacag lagu siiyo sidii ay dawladda u amaani lahaayeen ama baraha bulshada ay uga difaaci lahaayeen qaarkoodna waxa sheegtay inaad caddeyn wayso waad soo bandhigi doontaa laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo siyaasiyiinta mucaaradka kuwa dawladda ku jirta adiga wali xiriir kula soo sameeyay
runtii xamar intaan sheeg waa ila sameeyeen intaan hadda maaragtay 9 bilood ku dhawaad Mareykan maana waa ila soo sameeyeen wax badan waa ballan qaadeen laakiin damiirkeygan waxaan siin karin inaan siisto sadanad yar ama shilidaad yar ama dadkan shalay sanoga u cambaarinayay oo ceebada u soo bandhigayay maanta inaan hoosta u leeyahay warday asna wuxuu noqday caadaqaad noqday marka aniga damiirkeyga wuxuu ka weyn maxay ku ballan qaadeen marka waxayna ballan qaadeen lama arko dhaqaalay ballan qaadeen kuraas wax hartay kursi wax hartay ballan qaadeen marka maxay ku leeyihiin dhaliisha naga daa dhaliisha joojiyo dawladda la shaqeeyo hebel iyo hebel iyo hebel ba muxuu waa soo xarwadeen hebel iyo hebel ba waxba la siiyaa حتى العقب بدن بيعددين قاربا كورني بشي صدح كم بانكو سينا قاربا يتوان كم بانكو سينا قاربا كوري محا وحرها وحرب تانكو سينا لكن دمير كي قديدي إنا وحا سميو او دالكيو بابا هي دالكان وحا نوغا ميشي لغسو عشي ديبكا سوماي لواسو مران اوغا دمير كي قان سينا إنا لالوش قاطة او لأمسيو او عن كل لحظو كورسي قاس كم عنسو كورسي بري وكتغ هي لكن هدان لالوش ما انت قاطو بريتو waxaad ogaanaysaa inaad meel xun kaliisid bad ogaanaysaa anigu waxaan u hadlahayo oo aan qayrinayo oo aan waxaan hala saxo waxaan rabaa dawlad Soomaaliyeed in la helo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku noolaad amni laakiin dawladnimo lagu ma noqdo laaluush iyo iga aamus waan ogahay dad badan oo idinaba ogtiin mucaarad ahaa oo Xasan Sheekh Kaayida ku dhicin jiray oo baraha bulshada dagaal xun ka waday oo mucaarad ahaa inay maanta hargeysa wada dhooban yihiin oo wada mushaar yihiin ama wadaad ha ahaado ama siyaasi ha ahaado oo aad ogtihiin qaadan hadda hebel ma oranayo oo markii nin ka soo jeedo koonfurta Muqdisho ka soo jeedo oo hadlo laga daba hadal siinayo oo la war maxaa kugu dhacay adar dawladdan waxaan ka helay waxaan ku horkeedi karin marka qofka damiirkiisa inuu shaqeeyo fiican waxba itari mayso laaluush ligu aamsiyo oo bari aan dhamaado markii bari maanta laaluush ligu aamsiyo oo aan maanta dawladdan u sacbi way fiican tahay oo dawlad kale bari tagtimaado oo ayana aan mucaarado maxaa la arkaya waxaa la arkayaa nin hunguri u ordahay baa la arkayaa marka anigu arrimahaas mar la igu iman maayo codkayga iyo meel kasta waxaan gaarsiiyaa oo aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed uma qalanto codkiisa qof in la gato no vote for cash baan leeyahay